xilli ay bilowdeen roobabkii deerta ee fasalkani maalmihii la soo dhaafayna uu si fiican uga da'ay magaalada Baydhabo waxaa durba soo ifbaxaya saameynta uu ku yeeshay barakacayaasha aan lahayn hal ay uga onkortaan roobka sida idin muuqata oo ay caddahay xaalkooda ka sheekeen la'aan waqtiga roobka uu socdo dhibiciisu dhacayso in ay yihiin kuwa sare joog waagu ugu bariyo iyadoo ay u dheertahay cunto yari haystana ciyaal isu maqada ah waayeel aan u adkaysan karin dhaxanta iyo gaajada cidna uga garaabayn isaaq macallin waa horjoogaha kaamka haluul iyo harqaan oo ay soo degeen dadkani oo barakacayaal cusub ah kuwaasoo dhowaantan ka soo cararay miyigii ay ku noolaayeen kadib markii ay dhaafeen xoolihii ay dhaqanayeen xilli horena ay ka quusteen dalag beeraha uga soo go'a kadib markii labadii xilli ee u dambeysay abaarsadeen beerahoodii waxaana isxaaq oo horjoogu ah barakacayaashani cusub codsanayaa in loo fidiyo gargaar hoygii ay ku noolaayeen ee Baydhabo dhexdeedana ay noqotay bohol ani argahay tangmay baha gudoomiye haluli harqaan magaga isaaq maalan la ra ilaahay ba mahadis kulle neema ilaahay nin sheeni ya macnaha ilaahay neemadiis datisa dadku waxyaalo ka deerasa neemadii ilaahay nin sheeni ya mayni nagatay meel bohol ee degni halay ihamin hor indhaka umaskasiin onogo jiidano idbi do badbaadiyana waa kanin bari kaamka biyoodi kan isin kamerada ka arag doontangu roobti irka kooyta ama onoglay ka dhiyaas ama halay ka dhiyaas biyo hoosaha galaayan kornaha galaayan marka ilaahay bawal dasiyay maamulka koonfur galbeed iyo hay'ado samafalka may bak odsadaane maadada koowad mayl ray tanfileedan dabadale oo gooy fadheedo horta wayn baan baahna in iyo lay baad degdeg ilahni la deer madii buna erna sheebki koonfur galbeed beerto may badegna ka beero dhatiyo kaamata banaanka ku jarna beera degni beer heere ahayti ilaahay may baan inshaanay rooban inshaanay usi mahadle roobka lan helnana nicmo mal helaw hoolagay shalay baahnaayeen geek wala biya dhaxwaran cooshadaha ay degan yihiin oo ka samaysan ulo maryo iyo kartoomo xarig la iskula dabdabay si ay u guriyeystaan iyagoo xilligii ay dhisayeen ay u muuqatay in ay kaga gabadaan kulaylka cadceedda waxayna naawilayeen in xilliga roobka ka hor ay baco ka heli doonaan hay'adaha gargaarka iyo maamulka degmada Baydhabo kadibna ay kaga gaashaaman doonaan roobka ha yeeshee sida ay qorsheynayeen waxba umaysan dhicin gargaar daaye booqasho looguma iman xilliga roobka cudurshadiisa oo lagu waday 14 Oktoobarna uu ka soo hormaray biyo ulaadin oo qaado fadi walay un haysana hataa halkan walka kartano haysan idin ma haysan meel jikka weel dhadaana madle ali aan dhibaataysanaha lahani lideero fadaan degdeg iyo nay toy baadiya idin jee walay ulaadin ku noolaysa faniin lahani lideero fadaan roobka kan hataa nahayo kan ay bahati ku gargaro ayna kan waa bani kunago ku meeluna baryaana madle walaalayaal hay'ad sharaftile ali un aan dhibanaha walaalayaal oo biyo la rafaadahay baahin la jarta raamanin la jarta alaabtan biyo qaadi inta dhibaato ka roogna ilaahay jee walna neetaro fadaan biyogan aminateedan birku biyo qaadi inta dhibaato ka roogna walna neetaro fadaan hay'ad hadda oo xaalkoodu xun yahay rajo mooyee ma hayaan in ay hadlaan ugu yaraan bal in warkooda la maqlo ayay istuseen waxay doonayaan kol haddii ay sheegeen codkooduna baahay warbaahintuna la wadaageen in ay helaan gargaar waxayna filayaan in hadalkooda la ajiibo cabashadooda la maqlo muuqooda loo damqado cidladana looga garaabo mukhtaar shaqaadan dalmar telefishinka raadiyaha dalsan burshan weynay Baydhabo Jinaay